kulanti wanaagsan daawadayaal kuna soo dhawaada warka habeen ee Wardheera TV qodobada caawa aad ku daawan doontaan waxa kamid ah gaari qarax sida oo la sheegay inuu ku jiro magaalada caasimadda ah Muqdisho madaxweynaha Soomaaliya oo tagay dalka South Africa taageerayaal loo diyaariyana lagu wada inuu khudbad u jeediyo shacabka degmada Ceelwaaq oo ka hortagay qorshe ciidamada Kenya ay ka wadeen gudaha degmadaasi xarunta maamulka degmada Karaan oo halis amni wajahaysa ciidamada amniga Galmudug oo galabta xire wadooyinka gala magaalada Gurceel ee gobolka Galgaduud iyo baaritaano socdo ra'iisul wasaarihi UK Theresa May oo iscasishay iyo hay'adda IMF oo digniin adag ka soo saartay dagaalka ganacsi ee Mareykanka iyo Shiinaha fadlan haddii aad nagu cusub tahay subscribe YouTube channelkan si aan kugu soo gudbino wararkii ugu dambeeyay ee Soomaalida iyo caalamka intiisa kale hagaag markaan aan soo qabto qodobka ugu horeeya caawa madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa galinkii dambe maanta waxa uu ka dhoofay garoonka diyaaradaha Aadan Cabdulle Cusmaan Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho isagoona madaxweynaha ku soo jeeday dalka South Africa wararkii ugu dambeeyay caawa naga soo gaaray South Africa gaar ahaan magaalada Pretoria ayaa soo sheegaya in madaxweynaha Soomaaliya halkaasi uu gaaray isla markaana madax ka tirsan South Africa halkaasi ay ku soo dhaweeyeen madaxweynaha ayaa la tilmaamay inuu yahay ujeedka safarkiisa ka qaybgalka caleemasaarka madaxweynaha dhawaan la doortay ee dalka South Africa Cyril Ramaphosa xafladda caleemasaar kadib ayaa sida wararka aan ku helayna waxa ay sheegayaan in si qarsoodi ah madaxweynuhu uu la kulmi doono xubno ka tirsan jaaliyadda South Africa oo si gaar ah loo soo xulay sida uu goordhow iyo xaqiijiyay mid kamid ah howlwadeennada safaaradda Soomaaliya ee Pretoria madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ka baaqsanaya in uu khudbad u jeediyo jaaliyadda wadankaasi oo dhibaato weyn ku qabo kooxo burcad ah oo dil halkaasi u geysta dhalinyarada Soomaaliyeed ee ganacsatada ah madaxweynaha ayaana ka cararay in halkaasi su'aalo lagu weydiiyo Soomaalida halkaasi ku ganacsata ayaa wajahaya cadaadis ku aadan in dil iyo handadaad loo geysto iyadoona bab loo geysto ganacsiga halkaasi ay ku leeyihiin warar uu helo Wardheera TV ayaa sheegaya in daqiiqado ka hor ay ciidamada ammaanka lagu wargeliyay sida ay sheegayaan in magaalada uu soo galay gaari hoomey ah oo ku raran walxaha qarxa gawaarida nooca caasiga ama hoomeyda ayaa gabi ahaan lagu xayiray magaalada Muqdisho inay isugu kala gooshaan maadaama amarkan uu ka soo baxay saraakiisha sarsare ee hay'adaha ammaanka Soomaaliya isgoos waliba ee magaalada gaar ahaan kuwa waqooyi ayaa waxa ciidamada booliiska iyo kuwa nabadgelyada qaybtood ay baaritaano adag ku sameynayaan gawaarida nooca caasiga iyadoona aysan jirin gaari caasi oo ka baxay magaalada Muqdisho isla markaana kuwa soo galay aysan jirin magaalada caasimadda ee Muqdisho amnigeeda ayaa ah muddooyinkii ugu dambeeyay mid faraha ka sii baxaysay kadib markii ay soo kordheen bishan barakeysan ee Ramadaan weerarada dagaalamayaasha Al-Shabaab ay ka geysteen gudaha magaalada Muqdisho markana gobolka Gedo wararka ka imaanaya degmada Ceelwaaq ee gobolka Gedo ee Soomaaliya ayaa sheegay in ciidamada Kenya iyo dad shacab ah ay ku dagaalameen bartamaha degmadaasi sida saraakiil ku sugan degmada Ceelwaaq ay noo xaqiijiyeen israsaaseyn ka dhacda degmada ayaa la sheegay inay ka dambeysay kadib markii shacabka degmada ay ka hor yimaadeen qorshe ciidamada Kenya ay damacsanaayeen oo ah inay qalab dhismo dhexmarsiiyaan degmada qalabkaasi dhismaha ayaa ahaa mid ciidamada Kenya ay doonayeen inay ku xoojiyaan gobol doonayo in lagu balaariyo dhismaha darbiga Kenya oo ay Kenya doonayso inay ka dhiso xuduudda Soomaaliya iyo Kenya Colonel Aadan Xirsi oo kamid ah saraakiisha ku sugan degmada Ceelwaaq ayaa warbaahinta gudaha u sheegay in ciidamada Kenya ay rasaas ku fureen shacab isku hor istaagay in qalabkaasi ay marsiistaan gudaha degmada Ceelwaaq ee gobolka Gedo sidoo kale waxa uu sheegay taliyahaasi in rasaasta ciidamada Kenya ay ridayeen aysan geysan wax khasaare ah isagoo amaanay shacabka ka hor yimid qorshaha ciidamada Kenya ayaa doonaysa inay dhisto darbi weyn oo dhanka xuduudda ah waxaana marar badan arintaasi ka hadlay mas'uuliyiinta dawladda iyo kuwa Jubbaland iyagoo dalbaday in la joojiyo dhismaha Kenya ay ka wado xuduudda Soomaaliya iyo Kenya markaana war ku saabsan Karaan sanadihii ugu dambeeyay Al-Shabaab waxay fursad muhiim ah u arkeen inay weeraraan xarumaha degmooyinka ee dawladaha hoose xamar waxaana halkaasi ku dhamaada dad badan oo maras iyo shaqaale dawladda isugu jira iyadoo qatartaasi amni ay jirto maamulada degmooyinka hay'adaha ammaanka iyo maamulka gobolka Banaadir kama muuqato feejignaan amni iyo u diyaar garowga qatarta kooxaha caadeysta laynta shacabka Soomaaliyeed goobaha halista ugu jira weerarada Al-Shabaab ee aan diyaar garowga ka muuqan waxa kamid ah xarunta maamulka degmada Karaan oo 90% dayacan xarunta degmada waxa ay ku taalaa laamiga isgooska degmada Karaan halka loo yaqaan isgooska Jiira Wacbuudan
ma jirto wax difaaca oo ay leedahay haba yaraatee waxaana u nugul in gaarigii laga leexiyo laamiga si toos ugu abbaara degmada islamarkaasina lagu weeraro degmadan ayaa leh 2 qof oo waardiyaha keliya islamarkaana booliiska joogay gebi ahaantood magaalada ay iska aadeen al-shabaab ayaa mid ka mid ah 3 qarax ee ugu dambeeyay waxa ay ku weerareen xarunta maamulka degmada warta nabadda ee gobolka Banaadir oo ay ku dhinteen ku dhawaad 10 qof oo shacab iyo shaqaale dawladeed sidaa darteed maxaa diidan in al-shabaab ay weeraraan xarunta maamulka degmada Karaan mar haddii ay maamulkii arintaasi ka taxadareenin waa su'aal u taagan in laga fakaro hase yeeshee warar aan u helin ayaa sheegaya in maamulka degmada uu wado qorshe ku aadan sidii looga hortagi lahaa weerar walba oo ay al-shabaab isku dayaan inay ku soo qaadaan degmada Karaan ee gobolka Banaadir sida ay sheegayaan wararka aanu ka helayna oo goobjoogayaal ay noo sheegayaan magaalada Gurceel ciidamada ammaanka ayaa maanta xiray wadooyinka soo gala magaaladaasi iyadoona halkaasi baaritaano ay ka wadaan baaritaanadan ayaa ka dambeeyay kadib markii shalay halkaasi lagu qabtay nin doonayo inuu isku qarxiyo sida ay soo sheegeen dad goobjoogayaal oo halkaasi ku sugan ciidamada galmudug oo wato gaadiidka dagaalka ayaa lagu arkaya wadooyinka gala magaalada Gurceel iyagoo howlgalo baaritaan halkaasi ka wado dadka deegaanka ayaa wardheer TV u sheegay in ciidamada galmudug shalay ilaa iyo maanta ay gacanta ku dhigeen 5 ruux kale oo qayb ka ahaa walxaha qarxa ee soo galshay magaalada Gurceel ciidamada ammaanka ayaa aad u adkeeyay ammaanka magaalada Gurceel iyagoona wadooyinka dadka shacabka u diiday inay maraan maadaama ay baaritaano socdaan fadlan haddii aad nagu cusub tahay subscribe YouTube channelkan si aan kuugu soo gudbino wararkii ugu dambeeyay ee Soomaalida iyo caalamka intiisa kale hagaag markaan akhbaaraadkii dibadda waxaa maanta oo Jimcaha ku dhawaaqay inay xilkii iska casishay ra'iisul wasaaraha dawladda Ingiriiska Theresa May kadib markii ay kulamo la qaadatay mas'uuliyiin ka tirsan axsaabta siyaasadeed Theresa May ra'iisul wasaarihii Ingiriiska ee maanta is casishay ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay cadaadis kala kulmaysay qorshaha Britain ay uga baxayso midowga Yurub oo lagu dhaliilay xukuumadeeda hadal kooban oo ay maanta siisay warbaahinta ayaa waxa ay ku sheegtay in dadaal fara badan ay sameysay iyo qorshayaal dawladda Ingiriiska ay kaga bixi karto midowga Yurub uu fashil ku soo dhamaaday hadda way cadaatay in waxa ugu wanaagsan ay dalka ay tahay in ra'iisul wasaare cusub uu hogaamiyo dadaal dheerna uu galsho sidaa darteed waxaan maanta ku dhawaaqayaa inaan iska casili doono hogaamintii xisbiga Conservative-ka laga bilaabo 7 June ayay tiri May oo warbaahinta la hadashay Theresa May ra'iisul wasaaraha Ingiriiska ayaa xilka qabatay sanadkii 2016 kadib markii uu iska casilay David Cameron xilkan waana haweeneydii labaad ee Ingiriis ah ee xilka qabatay wadankaasi ugu dambeyn hay'adda lacagta adduunka ee loo yaqaan IMF ayaa ka digtay dagaalka dhanka ganacsiga ee u dhaxeeya Mareykanka iyo Shiinaha war-saxaafadeed ka soo baxay Khamiistii shalay ayaa lagu sheegay in hardanka u dhaxeeya labada dal ee ugu dhaqaalaha badan caalamka uu halis gelin karo kobaca dhaqaalaha sanadkan aynu ku jirno IMF ayaa intaasi raacisay in caqabadaha ugu weyn ay wajihi doonaan ganacsatada labada wadan madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sanadkii hore canshuur xoogan ku soo rogay shixnadaha ganacsi ee Shiinaha ayaa dhankiisa ugu jawaabay canshuur kordhin uu ku sameeyay badeecadaha Mareykanka waxaana tani ay cadaadis ku abuurtay ganacsatada fadlan haddii aad nagu cusub tahay subscribe YouTube channelkan si aan kuugu soo gudbino wararkii ugu dambeeyay ee Soomaalida iyo caalamka intiisa kale guud ahaan daawadayaal waxaan intaasi ku soo afmeerayaa wararkii caawa ee Wardheer TV tan iyo warcaynkani oo kale nabadgelyo